haddaan weak nahay weaknimadan waxay ka imaanaysaa annaga oo divided oo nalaga faa'iidaysto statekeenna wuxuu u degi la'yahay cadowgeenna waa badan yahay annagana waa fahmi la'nahay hal mid aan idiin sheegaa hadda barnaamijkan federalismka waa the law of the country waa la isku raacay in federalism la qaato laakiin federalism yaa noo keenay waxaan idiin sheegay qiso yar safiirka Canada ee u joogo United Nationka aan maalin la kulmaynay waxaan kala hadlaynay arrimo la xiriiro inuu naga caawino arrimaha federalismka maadaama Canada ay federal system tahay federalkoodan u dhow yahay kan aan rabno inaan qaadano inaan hal xaba been ku darayno wuxuu igu yiri meeqa jinsiyadood aad degan wadankiina markaasaan ku yiri one wuxuu yiri meeqa luqada ku hadashiin markaasaan ku yiri one meeqa diin aad leedihiin markaasaan ku yiri one wuxuu yiri why you choose federalism marka waxaan ku yiri wallahi that is the $1 million question but we chose marka waxaan ka wadaa anagii ma fahamsanin waxa federalismka ay tahay aniga muddo yar oo aan ka shaqeynay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga waxaan isku shuqliyay inaan bal ogaado waxa federalism horta muxuu yahay waxaan fiiriyay wadamo kala gedisan waxaan arkay Mareykanka waa federal system kiisa waxa waa dawlad xoog leh oo central ah stateskana waxay shaqooyin gaar ah leeyihiin stateka county-ga ka hooseeya county-ga city-ga ka hooseyso meelaha qaarkood waxaa jira villages iyo townships mid walbana structure ay leedahay laakiin straight forward waaye cid walba wax ay qabanayso waa la ogyahay waxaan fiiriyay Canada same thing but a little bit more waxa waaye more decentralized power-ki waxaan tagay Germany completely federal member states waxa waaye waa very powerful laakiin waxaa jirta there is 4 areas of federal government aan loogu tagaynin maxay yihiin 4 areas oo all federal systemka India tag meel walba fiiri all federal systemska 4 area oo waxaa jirta oo lama taabaan ah oo federal government looga dambeynaa maxay tahay one maxay tahay inay national defense policy qabaan oo borderska wadankaas ilaaladiisa waxa soo galay iyo waxa ka baxayo waa in dawladda dhexe ay mas'uul ka tahay oo baasaboorka ha lahaato cidda visa la siinayo cidda joogaysa cidda ka shaqeynayso waxaas waxa iska leh federal government authority number 2 waa foreign policy state kan Minnesota cannot sign a diplomatic relations with China Bayern München gobolka la yiraahdo oo ku yaalo maxaa la Germany they cannot sign a diplomatic relation with the state of Minnesota or United States Quebec or mataqaana actually special status حتى la siiyay cannot sign a diplomatic relation with people of outside of mataqaana that foreign policy waxa loo dhaafay iskale federal government iskale the third bankerskina waa joogaan waa monetary policy yaa daabacaya lacagta yaa value gareynayo yaa inflation yaa policyga monetary policy oo wadanka yaa dejinayo waxa iskale wadan kastoo federal afiri waxa iskale federal government the fourth a little bit complicated waxa waa natural resource the natural resources unknown natural resources federal government should have a say how to distribute for example hadii laga helo banaadir xamara hadii laga helo gas natural gas laga helo federal government iyo dawladda federaalka waa isku og yihiin what certain percentage oo gobolkii laga helay oo qaadanayo hadii degmada Cabdicasiis laga helina degmada Cabdicasiis how much degmada Cabdicasiis will get and how much will federal get something oo waxa waa federal systemkii dawladda dhexe federaalka ay controlayso walaalayaal annaga hadda wax aan qabno ma federal la dhihi karaa hadda for example every federal state fiiri hal magaalo jooga ninkii federal state oo maanta dhan kula dhahayo federalism aan nahay annaga federalka waa kan waxa weydiinaysaa war degmada jilib ninka jooga yaa magacaabay asaa magacaabay koorabno ka qaada ninka baydhabo jooga asaa mayorka magacaabay asaa mayorka ka qaaday marka annaga dhan waxaan nahay wax aan fahamsanayn aan dhaxda uga jirnaa saasay tahay
ولا dhaqaajin karaa oo waqtigeeday leedahay waa la gaaraa waqti la xisaabtamo oo la yiraahdo war is this a system anaga horta aan rabno inaan ka qayb galno marka taas politicalkana it will not settle ani waxaan aaminsanahay dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay oo aan ku jirnay maxaa la yiraahdaa qalalaasaha waxaan ku jirnaa u malaynaa weli barasho inaan isbarano weli Soomaalida isma taqaano sidaan u malaynayo marka waxaan rabaa waxyaabahan trivia ah oo dhacdhacayo yaan lagu mashquulin aan fikirno aan dhahno war annaga saanan ahaan jirnay maxaan ku gaarnay levelkaas oo adduunka inuu ixtiraamo